Ibrahim warbixin toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa laba gabdhood oo markaasi wax ka qora arrimaha bulshada sida uu warbixinta inoogu soo dirayo Cumar Serbiyo. Muuna Axmed Cumar iyo Nada Yuusuf Cumar waa laba gabdhood oo ahaan jira 22 iyo 22 sano. Waxay wax ka bartaan jaamacadda Hargeysa inkastoo magacoodu uu meelay iskaga mid yahay. Haddana ma aha walaalo balse waa saaxiibo waqti badan wada qaata. Nada iyo Muuna waxay in badan wax ka qoraan arrimaha bulshada. waxayna noqdeen dad aad loo jeceliyay qoraalkooda sida uu sheegayo Mahdi Sheekh oo ka mid ah dhalinyarada Hargeysa. waxaan runtii aad iyo aad loo tixgeliyaa qaabka ay Muuna iyo Nadi wax u qoraan. waxa xusid mudan inay sanadkii tagay dabayaaqadiisii ka mid ahaayeen 6 qof oo ururka qoraaga Soomaaliland inta uu Sweden ka yimid oo Hargeysa u caleema saaray inay noqdaan qorayaasha da'da yar ee mustaqbalka fiican ee dawle. labadii sano ugu dambeeyay oo ahayd muddadii ay wadeen qoraalada ayaa waxay wax ka qoreen arrimo u badan dhanka bulshada. qoraalkii koobaad aan qoray wuxuu ahaa soo ifbaxaa qoraal la yiraahdo raaliyo tuma tahay aan kula hadlayay qoyska iyo gabadha wanaagsan sida ay u hanan karto sawjkeeda ama ninkeeda ay u noqon lahayd gabadh wanaagsan oo tusaale lagu daydo guriga iyo reerka ay yeegleelaysan ay u noqon lahaayeen reer qurux badan oo lagu soo hirto. waxaan ka mid ahay dadka jecel qoraalka kulley waxaan isku dayay oo aan qoray sheekooyin dhowr ah walaal aan aad u badnayn maxateen waxaan bilaabay qoraalka sanadkii 2012 adu qoraalka waan jeclaa laakiin qoraalkayga ugu horeeyay wuxuu soo baxay bishii April 2012 soo baxay waxay sheeko marka waxa aan jecelahay curinta sheekooyinka ku saabsan arrimaha bulshada. sheekooyinka qoreen Muuna iyo Nada waxay ku ururiyeen buugaag ay rajaynayaan inay dhawaan soo saaraan. Nada iyo Muuna waxay iiga sheekeeyeen qaabka iskaga caawiyaan dhexdooda qoraalada ay sameeyaan oo ay gudbiyaan warbaahinta si ay bulshada u gaadho. Muuna qoraalkii soo qortay intaan warbaahinta gelin baan aniga haya intaan la daabicin anigu haya marka anigu akhriyana isku xoojino qoraalka waxa noo tala qaacida inaan qoraal labada mid kaana dirin la soo si akhrino oo qalaad iska sii saxna qaladaadka isku sii anagu isku sii tijaabin. Nada runtii waa runteed waxa weeyaan waa qofka kaliya aan iska caawinay hadii jeer aan isku dhownahay waa qof aan wax wada wadaagno maxaate waxaan iskaga taakulaynaa maadaama aan wax wada jecelnahay oo aan qoraalkii aan jecelnahay waxaan iska caawinaa labadeeduna aan ku dhex jirno waxaan iska caawinaa wixii khaladaadeen aan iska taakulayno intii taagtayada ah oo aan wada tashano wixii aan qaban lahayn aan isdhiiri gelino aan iska rab taagnaano had iyo jeer aan iscaawino waxyaabahaas ayaan ka wada tashanaanada. Mahdi Ibrahim Cawaale waa aqoonyahan qoraa wuxuu hore u soo saaray buugaag dhowr ah waxaanu aqoon xeel dheer u leeyahay arrimaha qoraalka. mar aan weydiiyay falcelin ku saabsan Nada iyo Muuna waxa uu ii sheegay bilxaqiiqatan astaamaha qoraaga wanaagsan waa ka muuqataa labadoodaba حقيقة وتنت بدن ولا يسوق خلدارو مقارنة ساماركتي دور شيرو جرايد كالوفا في مقارنة ساماركتي وسويرو دودي اللي يسدع فيه واحد مو داماركتي مركا عيني حتى يهو هذا الآن لو إن المتاريخين بعد مو دام مقارنة سا والله لنا عودة شيء ده مقارنة سا ده البدن أستامها قراءة ونعكسن واقع مقطع مثلا قفوا إنه مقارنة سا محل يلاحظوه وإنه هل أبور يشو أما creativity وحكي لهذا هذا أفكارات اللي يلاحظوه مارتي هل أبور ماذا وليهين وحكلو كو أركيسا مارتي ومارتي إسلام كم يدار ده مقارنة سا أستامها قراءة ونعكسن كنيب كينت وحا مقارنة سا إلا كنت أقول على عدو مقارنة سا مارتي حقيقة كأوجانت وpersistence هذا هو ضبقل مقارنة سا كاميرا كينيسي قضب كلو ريالي مارتي قرالدو ده كده حموضة وحكم موضة مقارنة سا مارتي خيال قفك مقارنة سا قرال وين مقارنة سا مارتي خيال صري وياشو مقارنة سا مارتي وحبا أنا دو أركينين إنه وحكاقة دي كارو مقارنة سا أما دينا كده كاتوسي كارو dadka inta badan ku xiran goobaha bulshadu xogaha ku kala helaan sida jaraa'idada iyo mareegaha internetka waxay in badan hadal hayaan qoraalada kala duwan ee Nada iyo Muuna iyadoo sidaas tahay haddana waxay ii sheegeen mar aan kula kulmay Hargeysa inay hiigsanayaan meel halkaasi ka fog
himilada fogaan leenahay waxa weerta bulshadana Soomaaliyeed maadaama qof horta fikir la tahay maadaama qof maskaxdaada waxyaabo badan ay tamanayso dadku waa laba qof hadla oo bulshada hadal buu ugu gudbiyaa sidaan iyo sahan la yeelo waxyaabaha la sameeyo qofna gacantiisu isticmaala marka maadaama bulshadeenu meel fara badan ay ku sugan yihiin suurtagal aan ahayn in Mareykan tagon bulshada la hadlo in Australia tagon bulshada la hadlo waxa anaga suurtagal noqotay in qalinkayga mid kasta oo meel uu joogo qof kasta Soomaaliya iyo qof kasta afka Soomaaliga fahmaya inaan qoraalkay wax ku gaarsin waxa kaliya toon imka aan rajeynayaan waxa weeyaan dadkeena inay fahmaan waxaan ku dadaalanaa in dadkeena ay akhriskooga kor u kaco si ay ula qabsadaan caalamka waayo maxay akhrisku waa aad iyo aad buu muhiim yahay marka kaliya ku dadaalna waxaan dadkeena aan ku barbaarino akhriska si akhriska u bartaan marka qoraalada ay jecel yihiin hadii dadku waxay jecel yihiin sheekooyinka marka rajadeeda aad iyo aad intaasan ka qabo balsiir biyo Somali Channel Hargeysa